muslima cali ibraahim waa hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho waxay la xanuunsanaysay cudurka wadna xanuunka ayaa qaliin iyo gelinta wadnaha bateriga loogu sameeyay Redsi Hospital ee magaalada Muqdisho. Maama Muslima cali Ibraahim ayaa ka warbixinaysa xaaladeeda caafimaad qaliinka kadib. Anana ogaal aan lahayn imaaday markii ugu horeysay waxa la yiri xididada ka xiran xididada oo wadnaha waxa la yiri waa la ii furay haddana waxa la yiri bateriga u baahan tahay wadnayga shaqeyn waaye haddana bateriga la ii geliyay alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh alxamdulillah maanta caafimaad baan dareemayaa insha Allah. Dr. Hussein Bektas oo sameeyay qaliinka Muslima cali Ibraahim ayaa sharaxaya sida ay ugu guuleysteen qaliinkan. Pacemaker kalpte oluşabilecek ölümcül ritim bozukluklarının restorasyonu ve tedavisi amacıyla kullandığımız cihazlara söylüyoruz. Aynı zamanda tabii pacemaker'ların çeşitleri mevcut. En basit düzeyde olanları sadece bir ritim bozukluğu AV tam blok dediğimiz kalpteki yani Dr. Abdulwahab Daybe Ahmed maamulaha caafimaadka ee Redsi Hospital ayaa tilmaamaya in maanta laga maarmi doono qaliinadii noocan ah ee dibadda loo aadi jiray. wadnuhu haba yaraatee wax dhiig ah oo uu tuurayaa ma jiro. wadnuhu haddii uusan wax dhiiga tuurinna bukaankii dhammaan xubnihiisa jirka ugu muhiimsan sida maskaxda, wadnaha, kelyaha iyo beerka dhib baa ku imanaya. si markaa taa looga badbaado oo electrigaasi sidiisii hore loogu soo cesho ayaa culimada waxa weeye caafimaadku waxa ay leeyihiin wax lagu magacaabo bayteri oo ah qalabkaas waa loo jeedaa baan u malayn oo kalxanta hoosteeda maqaarka hoostiisa la gelinayo. bayterigaas laba waayir buu leeyahay. labadaa waayirna waxay aadayaan wadnuhu afar god buu ka kooban yahay. labada god ee midigta ee ka sare iyo ka hoose ayaa halkii fiilaba mid ay Xasan Maxamed Nuur agaasimaha Redsi Hospital ayaa sharaxaya sida ay ugu guuleysteen keenista qalabkan. adeeg aan ku soo kordhinay isbitaalka oo aan hore loo sameeyay jirin dalka gudihiisana aan hore loogu qaban. adeegaas oo aad soo aragteen oo ah dadka ka xanuunsan wadnaha qaybtii hore aan sameynayna ee ahayd xidid furista oo aan hadda ku soo biirinay bateri gelinta ama pacemaker-ka. dhaqaatiirtii oo inii soo sharaxday qalabkii aad soo aragteen bukaankii ugu horeeyay oo ka faa'iideystay adeegaas oo asagana soo aragteen. waxaan rajaynayaa bukaanada Soomaaliyeed inay ka sii faa'iideysan doonaan adeegaas oo aan waqti badan iyo juhdi badan aan gelinay sidii dalka gudihiisa lagu heli lahaa. Redsi Hospital ayaa markii ugu horeysay ku guuleystay qaliinka wadnaha iyo gelinta bateriga wadnaha.